بسم الله. عشر كان wuxuu ka mid yahay casharka saddexaad ee decimalka ama 10 le sida af Soomaaliga aan ku sheegnay. ciwaankiisuna waa comparing and rounding decimal. iyaduna waa sida la isula barbar dhigayo labo decimal ama laba 10 le. waa qaybta koowaad aan ku hormarayno. qaybta labaadna waa sida roundingka ama wareejinta numberkii oo la bedelayo 10 laha ahaa. wuxuu ku xiran yahay casharkan casharadii hore aan soo dhiganay inuu qofku si fiican u fahansan yahay markuu isbarbardhigayo iyo markuu roundingka sameynayo ama isbarbardhiga iyo wareejinta markuu sameynayo. labadii casharan soo qaadanay midna uu ahaa inaad taqaanid place value ama booska numberku fadhiyo inaad taqaano ayay ku xiranta. waxaan marka u baahannahay si aan u fahanno labadan shardi ina qofku ogyahay baa la rabaa. shardiga koowaad waxa waaye waxaad aad ogaan kartaa in laba 10 le ama laba decimal kii weyn waxaa shardi ah in ay labadan lambarba ay ka siman yihiin ay ka dhisan yihiin isla ekaan. oo haddii mid dhiman cadadka nambarada ay ka samaysan yihiin kan kale uu ka yar yahay waxaa muhiima kan dhiman in eber lagu daro. waxaan ku arki doonaa tusaalayaalka. qodobka labaad ee qaybta labaad aan u gudbi doonana waxa waaye roundingka ama wareejinta. roundingku marku muxuu yahay ama wareejintu waa tiro qaab lagu bedelaya tiradee taasoo laga dhigayo tiro sahlan oo la xasuusan kara ama qof walba u sahlan inuu fahmo. waxa ayna u baahan tahay shuruudo ahaan haddii tirada lambarka midigta xiga yahay mid ka mida lambaradan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waxaa loo wareejinayaa 10 laha hoos oo nambarka 10 laha tobnaadka hoose ayaa lagu wareejinayaa. iyadana waxaan ku arki doonaa tusaalaha. tiradaas oo lambarkeeda midigta xiga noqonaya eber. haddii tiro lambarkeedu midigta xiga uu yahay lambaradan waa shardiga labaade 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 ayadana waxaa loo wareejinayaa number weyn oo nambarkii adigu marka wareejinaysay waa la weyneynayaa oo 10 laha xiga dhanka sare laga dhigaya. lambarka midigta xigana markasta wuxuu noqonayaa eber oo nambarkii ama 5 ahaa ama 6 ahaa ama 7 ahaa ama 8 ahaa ama 9 ahaa waa la bedelayaa. nambarkii asaga bidixda ka xigana 1 baa lagu darayaa. shardigaani marka waan ku arki doonaa si fiican waxaan ugu faahfaahin doonaa markii aan samaynayno tusaalaha. laakiin midka hore ee ah 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 asaga haddii eber laga dhigo waxba laguma daraya nambarkii bidixda xigay. tusaalahan ku arki doonaa. marka hadda waxaan bilaabaynaa qaybtan ku xigta waana tusaalahan inaynu dhisno. markii tusaalaheena koowaad wuxuuna oranayaa compare baana la yiri waxaan isbarbar dhigaynaa nambarkeena baan isbarbar dhigaynaa. waxaan iscompare dhigaynaa labadeena number. waxaana la yiri compare
Okay. waxaanu haysanaa waxaana la yidhi compare ama isbarbardhig. Compare isbarbardhig. waxaan haysanaa labadan number oo ah 428,000 and 430,000. waxaan rabnaa inaan ogaano sidii aan ku eegi lahayn kee weyn. markaas barbar dhigayno waxaan fiirinaynaa marka hore tirada hore ee dhibicda bidixda ka xigta. numberka waa 24, kan kalena waa 24. marka they are same. waxaan fiirinaynaa meesha uu jiro numberka afarta ah oo tenths ah oo tobanle ah. kan kalena waa 4 sidoo kale. maadaama ay 4 iyo 4 ka siman yihiin, 2 iyo 3 way kala wen yihiin oo 3daa weyn. oo kan waa 28, kana waa 30. markaan isbarbar dhigno 24 428 iyo 24.430 waxaan leenahay this 24 and 430th ayaa bigger ah, ayaa weyn. waa isbarbardhiga. qaabkaan u qorayna marka waxaan isticmaalaynaa marka calaamadaha caanka ah ee ah ka yar iyo ka weyn. labadan calaamadood ka yar iyo ka weyn waa hal calaamad oo labada dhinac loo rogay oo la jeediyey weeye. ma ahan laba calaamadood, micnayan bay ku kala duwan yihiin. oo hadda markaan dhahayo numberka dhanka aan dhigay ku xiran tahay. marka hadda haddaan dhaho 24 400 iyo 428 tobanle way ka yartahay xagga inaa usii jeediya waa calaamadda. way ka yar tahay oo fallaartu dhankay u jeedo afkeeda mudaca ah ayaa sheegaya yaraanta. waxaan leeyahay way ka yar tahay 24.430. haddaan dhanka kale u rogana waxaan dhihi karaa 2 4 waa 24 430.430 way ka weyn tahay 24.428. sidaasaan isu barbardhigaya mar kasta. oo barbardhigayga qaabkaasuu ku imaanaya. halkan marka hadda waxaan arkaynaa tusaalayaal dhowr ah. su-aasha koowaad haddaan ka shaqeeyo oo tusaalaha kana waa examplekii wey, waa tusaalihii wey. tusaalihii wey. su-aasha koowaad waxayna dhahaysaa isbarbardhig compare these pairs
of decimals. Isbarbardig lamaanahan tobanlayaasha ah. Right adoo qoraya calaamadaas ka weyn ama ka yar to show where the first decimal is greater or less than the second one. Adoo ku muujinaya kan hore ad dhigtaa inuu ka wen yahay ama ka yar yahay kan dambe ama labadoodaba kala wareejiso od ka qorto kani waa ka yar yahay kan ama kani waa ka wen yahay kan sida aad rabto buu dheh laakiin waxaa la rabaa inaad isbarbar dhigto marka waxaan qoraynaa su-aashu waxay leedahay number 1 waa 837 waa 16.837 iyo an waa iyo 6.9 markaan isbarbar dhigayno marka cilad baa meeshii timid marka hadda oo kan 16 waxaa ka dambeeya dhibicda 3 number baa ii muuqda waa 8 3 iyo 7 numberka 16 dhibicda waxaa ka dambeeya hal number oo 9 marka waxaan waa shardigeennii koowaad oo hadayta aan ka hadlayno oo ah haddii aad isbarbar dhigayso waa inay kaamil yihiin waa inaad dhistaan labadii number marka see u kaamil yeelaynaa waxaan waaye 16kii dhibicdiiba waxaan ku diraynaa eber hal eber keliyana ma aha waxaad ku daraysaa inaad sinto labada dhinac oo see u samaynaa marka waxaan dhahaynaa kan koowaad baan qoraynaa 16.837 waxaan qoraynaa kan kale waxaan dhahaynaa waa 16 kale dhibic 9 meeqa marka eber baan u baahannahay 2 maadaama 3 iyo 7 booskoodii markaan 3dii eber ku buuxino la sino haddana eber kale inaan ku darno waaye oo 7 markaasay siman yihiin ku kordhinta eberku marka cadad ma leh waa inta aad uga baahan tahay hadda marka waxaanu isbarbar dhigi karnaa isbarbardhig wuxuu imaanayaa hadda inaan qaxno marka kee weyn waa marka waxaa weyn midka hoose oo ah kani waa 9,000 tis waay kan kalena waa 837,000 tis marka waxaan leenahay 16.900 way ka weyn tahay 16.37 ama qaabka kale u qori karta oo maxaa leedahay 16.837 way ka yar tahay 16.9 eber labada wajiba kii adiga kuu sahlan ayaad u qori kartaa barbardhigga aan ka hadlaynaa waa inta waxaan ugu bedinaa bejkan ku xiga waxaanu haysanaa exercise B iyo exercise C ama layliga ba iyo layliga a halkan waxaa nala siiyey qaab cusub oo nala leeyahay sheeg nambaradan in each set is greater. Tell which numeral in each set is greater. waxaana laga rabaa inaan calaamadino numberka koowaad haddaan soo qoro numberka ugu weyn inaan calaamad saarno waxaan ku calaamadin karnaa waa underline garayn karnaa xariiq baan hoos ka marin karnaa ama xariiq goobaan gelin karnaa marka waxaan leenahay waxaan haysanaa
saddex saddex labo waa kan koowaad kan ku xigaana waa 5 saddex 9 9 kan ku xigana waa 5 dhibic 3 1 7 waxaa la yiri sheeg midka ugu weyn ana midka ugu weyn baa leh waxaan fiirinayaa shuruudihii marka horta hore nambaradan la siiyay mid walba meequu ka kooban yahay mid walba 4 nambar buu ka kooban yahay waxaa su'aasha markay dhisan yihiin marka oo nambarada ay ka samaysan yihiin ay ka siman yihiin waxaan leeyahay marka kee ugu weyn waxa ugu weyn midkan waxa weeye hore 5 waa 5 dhibic 3 3 2 oo ah markaan luqadda Ingiriis ku aqrino waa 5 and 333,000 kan kalena muxuu yahay waa 5 and 399,000 kan kalena muxuu yahay 5 and 317,000 marka waxa weyn marka balace value-ga aan fiirsho waxa ugu weyn kan dhexda ku jira kaasa marka seerka saaraya jawaabtaydiina waxaan leeyahay 5.99 ayaa ah 3 aan ka tagay 5.399 baa ugu weyn waa halkaasay marka jawaabtaadu ku egto waxaa soo haray layliga labaad ee ah siida ama caada kuwan hadda xabaddan ka sameeya koowaad kulligood waa qaabkaasaa loo sameynaya qaybtaasi waa bida kore qaybtaana waa sida ayadana waxaan ka soo qaadanaynaa nambarkeeda koowaad maxaana la weydiiyey marka waxaana la weydiiyey write each set numeral in order from least to the greatest qaabka hadda aan isu barbardhigayna markii hore waxaan isu barbardhigaynay laba nambar baan cabiraynay kii weyn inaan dhahna kana weyn iyo inaan dhahna kana yar waxaan ka shaqaynaynay waxay ahayd intaa hadda waxaan ka shaqaynaynaa su'aashan waxaan ka shaqaynaynaa inaynu sheegno inaynu taxno nambaradan waxaan u taxaynaa kan ugu yar waxaan ugu dambaysiinaynaa kan ugu weyn markaan taxayna saddexda nambar kan ugu yaraan ka bilaabaynaa waxaan ku xijeynaynaa kan kale ku xige waxaan ugu dambaysiinaynaa kan ugu weyn marka su'aasha koowaad waxayna leedahay waxaanu haysanaa saddex dhibic eber 6 nambarka labaadna waxa weeye 3.219 nambarka ugu dambeeyana waa 3.58 su'aashaan is weydiinaynaa marka ugu horeysa waxa weeye nambaradeenna markaan fiirino dhismahoodu ma isleegyahay midka koowaad 3 nambar buu ka dhisan yahay waa 3 iyo eber iyo 6 kan kalena wuxuu ka dhisan yahay 4 waa 3.219 kan kalena wuxuu ka dhisan yahay 3.558 dhismahaasi marka isma leeka marka ugu horeysa waa inaan dhismaha isleekaysiinaa
oo aan qornaa inay iswada leegyihiin marka maxaa dhismo u baahan waxaa dhismo u baahan 3.6 oo inaan 4 ka dhigno waa inaan iyada eber ku darno waa marka hore waxaan samaynaynaa 3.6 eber kale inaan ku darno waa eberkaasaan ku daraynaa marka zaa'id ah hadda 4 buu ka kooban yahay lambar kii kalaan qoraynaa marka 3.219 kan kalena wuxuu ahaa 3.558 hadda marka maadaama aan isla ekaysiinay waa qodobkeena koowaad waxaan u gudbaynaa inaynu kala garanno kee ugu weyn kee dhexda ku jira oo labada midna uu ka weyn yahay midna uu ka yar yahay keese ugu weyn qaabka annaga nala weydiiyey waxaa la yiri waxa u qoraysaan waa su'aashu macna laftigeeda in laga jawaabo kan ugu yar baad ugu horeysiinaysaa kan ugu weyn oo ugu dambaysiinaysaa haddaba markaan akhrino waxaan haynaa 3.6 dan waxaan haynaa 3.219 waxaan haynaa 3.58 kee ugu weyn marka waxaa ugu weyn kan dhexda ku jira oo wuxuu yahay waa 3 an dhibicda an baa loo akhrinayaa 219,000 kan ugu horeeyana ku xigana waa kan ugu horeeyo 3.060 oo ah 360,000 kaas 60 baan leenahay kaasna laakiin 200 inisaan dhehayna thousand waxaa kaloo asna ugu yar 3.58 oo ah 358,000 marka qaabkii su-aashana loo diray baan u qoraynaa waxaan hormarinaynaa 3.58 waxaan leenahay waa ay ka yar tahay calaamad saasaan u dhigaynaa markaas fallaartu waxay sheegaysaa yaraan bay tilmaamaysaa oo yay ka yar tahay waxay ka yar tahay 3.6 okay waxay ka yar yihiin kulligood labadoodaba jameeca waxay uga yar yihiin 3.219 taxa anagu aan taxayno oo aan rabnay inaynu ku muujino oo aan jawaabta nalaga rabo waa taas marka maxaynu samaynay kow waxaanu fiirinay su-aasha nala siiyey marka su-aasha nala fiirisay waxaan fiirinay dhismaha nambarada saddexda nala siiyey ma isleegihiin waxaanu nidhi may midna labana 4 nambar bay ka dhisan yihiin nambarna 3 nambar buu ka dhisan yahay marka waxaan qaadnaa talaabada koowaad oo ahaad in aynu marka hore dhismaha kaamilno markaan dhismaha kaamilnay haddana waxaan usoo qaadanay tallaabadeenii labaad oo oranaysay u qor kan ugu yar uguna dambaysii kan ugu weyn waxaan u qornay qaabkii haddii aan dhanka kale u gidino oo aan u qori lahayn dhanka kale nalama weydiin laakiin way imaan kartaa su-aalaha dambe ayay ku imaan kardhaa inaan laakiin waad u qori kardhaa oo ma khaldana haddaad kan ugu weyn hormarisid calaamadda un baad rogaysaa waxaan u gudbaynaa beejkan kale oo intaasaan waxaa uga soo baxaynaa isbarbardhiggii waxaan imaanaynaa rounding ama wareejinta hortoro waa waxa ka mida nolosha caadiga ah wey oo aad loo isticmaalo in dadku ku baraarugsan yahay iyo in kale waa meesheeda khaasatan dadka ay laga yaaba inaysan saas u arag hore u arag ama aysan aqoon u lahayn
nolosheena inta badan markii aan adeeganayno ama wax samaynayno waxa qiimaha dhabta ah waxaan ma ogin laakiin waxa inta badan aan ku soconaa waa qiyaas annana waxaas meeqay joogaan marka taa cabirayna marka nambaro yar yar ma isticmaalna waxaan isticmaalnaa waa 100 waxaasi waa 1000 waa 150 waa 350 meelahaas nambaradaasaa u go'an baan isticmaal laakiin markii hadhow wixii rasmiga ah qiime rasmiga loo dego waxaa imaata in aad 150kii ama 200 ama 1000kii ama 10kii kun uu nambaro kale ay ku darsamaan ama nambarkii aad qabsatay ha ka weynaadaan ama ha ka yaraadaan rounding baa la yirahdaa ama tirada xiran ee dhisan ee mar walbaba eberku ugu dambeeyo waa qaab dadku u xisaabtamo tiro ariyaan leeyahay waa number la garanayo tiro xoolaan leeyahay 2 tiraan leeyahay 3 waxaa laga yaabaa tiradaas la isu sheegayo inaysan number ahaan marka loo xisaabo xoolahaas inaysan kunka aysan ahayn kunka ama wax ka dhiman yihiin ama wax ka zaa'id ku yihiin hadda marka wareejinta la isu sheegaya ama rounding waa saas hadda waxaan fiirinaynaa marka rounding u baahannahay maxaa muhiima waxaa muhiima place value waa inaad xasuusataa placeka aad rabto inaad targetkaagu yahay ama aad booska aad round garaynayso shuruudahan waa inaad taqaanaa marka hadda waxaan la siiyay tusaaleena koowaad waxaan la yiri rounded wareeji waa roundi oo ah wareeji 3 2 4 7 2 were hundreds ereygaas hundredska ah weeye targetku marka wareeji 3.24 waxaa muhiima marka in aan anagu garanno booska naloo diray ee la wareejinayo booska naloo diray booskee weeye hundreds oo marka aan qorno marka mar labaad nambarka waa 3 2 4 7 afarta ayaa ah afartu waa hundreds ayada weeye marka booska la ii diray ayadaa marka hoosta ka xariiqaya marka afartii la ii diray la yiri booskaas wareeji ama round garee sharadahigii hore baan dib ugu noqonaya marka maxaa la yiri marka round sameynaya roundingku marka wareejintu waxay ku xiran tahay laba hab weeye mid waa wareejintu waa laba hab waa rounding ereygan sidiisa inaa u barataan weeye wuu ku fiican yahay midna waxa weeye down oo hoos baa loo dhigayaa waxayna ku xiran tahay waxaana oo ku xiran yahay nambarada aad down ka dhigaysa haddii waa hoosta waxaa xukuma nambaradan markuu nambarku hoos loo dhigayo waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 midka labaadna waa up oo waa korna waxaa xukuma 5 6
toddoba sideed sagaal hadda waxaan ku cabiraynaa waa tusaalahan haysanaa hadda waxaan haysanaa 3.247 numberka naloo diranbana waa numberka 4 waxaana la yiri marka rounding leeyahay waa in lagu siiyaa meesha aad bedelaysa hadda waana la sii booska aan bedelayno waa hundredsna waxaa fadhiya 4 baa fadhida numberkii baan soo qaadaynaa marka waxaan leenahay 3.247 afarta way meesha naloo diray waxaan fiirinaynaa yaa midig ka xiga 4 ma ab ma hoos kuwii loo dhigayagaba mase waa kuwii kor loo qaaday waxa qaadmayana waa 4 kor inay u kacdo iyo inay meesheeda joogto weeye macnaha halka ku xusan oo aan leenahay down or up ama hoos ama kor macnaha waxa way 4taas isbedelka ku dhacayo haddii uu 4tu waxa midigta ka xiga ay yihiin nambaradan hadda 7 baa ka xigta marka 4tii kor bay aadaysaa oo kor maxay u aadaysaa mar walba booska hal baa ku darsamaya ama waxba kuma darsamaya kor u qaadida la isu sheegaya booskii la bedelayay hal baa ku zaa'idaya oo hadduu 4 wix alla wuxuu joogay hal baa ku daraysa waa hadduu kor yahay ama ab laakiin hoos hadduu yahay waxba kuma daraysid waxaa soo hartay numberkii midigta xigay sida hadda 7 oo kale maxaa ku dhacaya asaga ever buu noqonayaa wuxuu rabaa aado marka laba shardi baa meesha taan in numberku uu ever buu noqonayaa mar kasta laakiin numberka booska la bedelaya ma hal baa ku saa'idaya mise sidiisu ahaanaya waa labadaa shardi kale hadda kan marka waxaanu arkaynaa in ay 7 tahay waxaan arkayaa muxuu ahaa in halka kani numberku kor aadahayo waxaan samaynayaa numberkii kor baan u qaadaya hadda oo numberkaygu wuxuu noqonayaa maadaama aan 4 haysto halkan numberka midig ka xigana uu 7 yahay waxaan qorayaa 3.25 eber maxaa dhacay marka kana hal baan ku daray kana eber baan ka dhigay waa numberka marka waxa waaye kor buu aaday oo hadda si kale haddaan u dhahno 3.247 haddii aan number line-ka sawirno halkan haddaan ka dhigo 3 halkaana ka dhigo 4 dhexdana haddaan geliyo 3.5 in aan nambaradayda fiiriyo habka nidaamka ah halkan waa 3 dhibic halkaana waa 3 dhibic afar eber waa kee bay u dhowdaha marka nambarkayga xagee buu u dhow yahay su-aasha marka
tusaalahan ku siinayo xaggee bay ku jirtaa marka 3 numberkani wuxuu u dhaxeeyaa halkaanu ku dhex jiraa saddexdan number wuxuu u dhow yahay markaa fiirisid marka numberkan aan yareeyo tusaale kasii yare dabacsan baan samaynaynaa laakiin wuu fiicnaa number lineka markaan samayno halkan haddaan 3 ka dhigno 3.0 halka ugu dambaysana aan ka dhigno 3 dhibic 30 300 waxaan arkaynaa haddii aan fiirino 3 numberkeenna 3.24 marka ayaga aan cabirno mid walba meesha uu ku jiro waxaa inoo soo baxaya مثلا haddaan halkan ku dhigno 3.250 halkan na aan ka dhigno 3.247 halkan aan ka dhigno 3.240 3.47 waxay u dhowdaa 3.4 oo halkan 3.240 waxay ka fog tahay ilaa 10 digit number halkaana 3 kaliya ka fogta marka waxay u dhowdahay 3.250 marka waxaa la fiirinaya u dhowaanshaha see loo cabirayaa marka kane 47 waxay u dhowdaa 50 bay uga dhowdahay 40 macnaha laga hadlaya intaas marka markaan nambarada cabirayno oo aan ka shaqaynayno waxaanu fiirinaynaa nambarka dhanku u dhow yahay tusaalaha labaad waxaan ku samaynaynaa booskan halkan waxaana la siiyey exercise-ka ayaa waxaan samaynaynaa tusaalaha ka samaynaynaa exercise-ka D exercise D wuxuuna leeyahay round this decimals to the nearest 10th. Okay, 10th yana loo diray waxaana la siiyey tusaalaha koowaad
2.34 sida caadada noo ahayd waxaan naga rabnaa inaynu marka hore numberka qorno marka numberka qorno booskana loo sheegay baa calaamadinaynaa 2.34 booskana loo diray waa 3 tenti kaas waa xagga maxaa ka xiga marka tentiga waxaa ka xiga laba xariiq baan dhiganaynaa waa down numberadii downka because downku wuxuu ahaa ama hoos down ama hoos waxay ahaayeen 1 2 3 4 marka hadduu hoos yahay maxaa samaynayaa kani eber buu noqonayaa kana waxba kuma darayo nothing waxma ku darayo sidiisi u ahaanaya marka waxay noqonaysaa 2.30 jawaabtuna waa intaas numberkayga 2.34 ma wuxuu u dhow yahay 3.40 mase wuxuu u dhow yahay 3.30 meelna wuxuu ka fog yahay 4 number 3 number buu ka fog yahay uu ka durugsan yahay waa 30ga marka asaga tirada laga saaro xagga iyo 40na wuxuu ka fog yahay 6 number marka wuxuu u dhow yahay labada dhinaca 30ga waa tusaalaha koowaad tusaalaha labaad waxaana la yidhi exercise B exercise E waxaana la yidhi waxaad qortaa exerciseka waxaana la yidhi qor baana la yidhi qor the choice that the decimal correctly rounded to what? To the nearest 10th. Okay. 10th baana loo diray. Mar walba waa targetku meesha lagu diray. Marka maxaa lagu siiyey number 1 oo kale maxaa lagu siiyey? Waxaa lagu siiyey 0.03 waxaa lagu yiri marka labada dhibac waxay ka taagan tahay that's numberkaasi 0.03 waa su'aashaadi haddii aad round garayso booska 10th-ga ah oo waxa yaala ever baa yaal 10th-ga saddexda number keebuu noqonayaa su'aashaadu waa saas ma wuxuu noqonayaa 0.1 ma wuxuu noqonayaa 0.04 ma wuxuu noqonayaa 0.0 annaga markasta waxaa isticmaalaynaa sharcigeennii meesha noogu yaalay oo ah down iyo up aniga booska la ii diray waa 0.03 waa 0daas 10 asa ah waxaan fiirinayaa numberka midigta ka xiga waa 3 ma up bay ahayd mase down bay ahayd down bay ahayd marka saddexdii ever bay ii noqonaysaa hadday ever tahay maxaa soo baxaya maxsuulka waxaa soo baxaya 0.00 khalaas waxaan u sii qori karaa 0.0 because zerooyin haddaad sii wado iyo haddii aad halka qorato waa isku mid marka jawaabtu maxay tahay waa taa circle-ka aan geliyay 0.0 and
su-aasha iida xigta oo exerciseka efta ah asna waa sidii oo kale waa sida hadda halkan ku qoran oo kale la ii diray right la yiri the choice that is the decimal correctly rounded. To the nearest tenth. Okay. su-aasheeda ugu horeysa marka maxay tahay marka number 1 waa 5.823. That's my question. Nambarada la yiri u round garee maxay tahay marka waxaa la yiri u round garee 5.82 or 5.8 or 5.83. Look marka booska la ii diray waa booskee waa 100 waa hundreds sorry meeshaas anteen ka dhig waa khalad waxaa la yiri hundredska booska kuu taala fiiri 100 yaa ii fadhiya marka 2 waa ii fadhidaan hundredska waa calaamadinaya marka waa 5.823 hundredska booska 2 ga ii fadhiya maxay noqonaya marka sidii la ii sheegay numberka midigta ka xigaan fiirinaya waa 3 ma up bay ahayd mase down bay ahayd waa su-aalahan is weydiinaya waa down waay marka maxaa ii soo baxaya inay noqonayso eber 3 haddaan marka waxaan qorayaa waa 820 zerodaas ma significant ba ma wax macno keenaya mase ma keenayo waa iska dhaafi kadhaa qasab maaha haddaad waana ku darsan kadhaa waana ka goon kadhaas marka waxay noqonaysaa 5.82 waana numberka dhexda ku jira tusaalehan G iyo exerciseka H ba waa sidii oo kale exerciseska wuxuu ku sheegayaa inaad number walba lagu siiyey aad round garayso booska lagu diray 10th round these decimals to the nearest 10th adora tableka hadda aad arkaysaan you can do either way you want it. By column kalahaan baad u samayn kadhaa inta 10th-ga ku aadan baad ilaa 5 samayn kadhaa oo waxaa ka dhigi kadhaa 10th position 100-kana waxaa ka dhigi kadhaa 6 ilaa 10 1000-kana waxaa ka samayn kadhaa 11 ilaa 15. That's fine. That's a good way to do it, I feel. That way easiest way kaasaan u arkaa midkan ku xigaa waxa weeye H oo exerciseka ah asaga table waay each number inaa mar bedeshaa hal xabo examplea lagu siiye laakiin tableka waa buuxinaysaa kulligiis number walba mar wuxuu aad u bedelaysaa 10th mar waxaa u bedelaysaa 100 marna 1000 aa u bedelaysaa word problemkan hadda socda halka ku qorana oo solvingka ahna akhris buu kaa rabaa su-aalaha qaarkood waxaan dareemayaa sida su-aasha 3aad oo kale weliba aanaa gaarin laakiin isku daya fikirkeena laakiin waan aadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxay aad ka kartaan marka cashirkeena hadda maanta halkaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum